السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ سوتشرين كيادنا وحاسو مري حنون aad u weyn kuwaasoo galaaftay nolosha malaayiin qof. bilowga sanadan 2020 adduunku waxa uu la kowsaday cabsida coronavirus kaasoo ilaa hadda gaaray 213 dal oo adduunaha oo idil ah iyadoo ka dhigan inuu dhammaan daafaha caalamka gaaray jasiirada dhowr marka laga reebo. ilaa haatan waxa uu soo ritay tiradad oo gaadhay 2,121,000 oo qof in ka badan waxaana u dhimatay 142,000 oo qof. حقيقة coronavirus ما حنوك كلية تأفا فاقا دوينها خطر تقليا ساعاتي واحد شري حنونا كوري كوا آسيو اي وقربح دادقاري ملايين قف ودمان طافها عالم كان كوفيداي أفرتي قرني أنو صورافني أرين طلياب كلا هاي قرني والبسندكي سلاباتناد الدوينها وحاك الدلاعي حنون فافا سيدو اوكلا التاريخ دو حانو كردها هنينا إن أنا أهين مركي كوباد ايه تيرا وكبلاب مي حنون فيدا وأدونك ودنقارا 400 sano ka hor magaalada Marseille ee koonfurta dalka Faransiiska siibahan sanadii 120 waxa ka bilaabmay daacuunkii weynaa ilaadaas oo xanuunka kan ay ka soo galay magaalada Marseille dooni weyn oo ku soo xidhatay dekedeeda oo loo yaqaan Saint-Marin doonida tan oo istixaamul ahaa dun iyo xariiq oo ay dhexdeeda ku jirtay jeermiska keena cudurka kan ee loo yaqaan ricin jiirkuna waxa noolaha keenay in xanuunka kan ay sida aadka u fido xanuunkan waxa uu dhintay tiradad oo gaadhay 100,000 oo qof muddo yar oo kooban gudaheeda xanuunkan loo yaqaan geerida madow ma ahayn markii koowaad ee adduunyada ka dilaacay saaxatay qarniyada dhexe oo kaliya waxa uu dhintay tiradad oo u dhaxaysa 75 milyan ilaa 100 milyan sida uu xusayo taariikhyahanka Philippe Deladar dhaqaatiirtii bulshooyintii waagaas noolayd marnaba uma aanay meeleenin in sababta rasmiga ah ee ka dambaysa fidida cudurkan uu yahay jiirka aqoon darrada jirtay aawadeed iyo si aan dadku u daadin sababta rasmiga ah ee ka dambaysa fidida cudurkan oo ah jiirka mar badan waxa dhacday in weerar lagu qaaday Yuhuudda iyadoo ay dadku u maleynayeen xanuunka kan ah inuu ku yimaado Alle boqol sano kadib dalaacida daacuunkii weynaa siibahan sanadii 1820 adduunku waxa soo food saartay khatartii hore ka weyn iyadoo uu ka dilaacay xanuunka cholera magaalada Calcutta ee dalka India iyadoo bulshadii halka ku nooled xanuunka kan ka qaaday cunitaanka bariis aan nadiif ahayn xanuunkani waxa uu ku baahay dhammaan India oo dhan isagoo ganacsiyada badda iyo bariga mara ugu gudbay dalka Ruushka halkaan ka gaaray galbeedka Yurub ugana sii tallaabay dalka Mareykanka Philippines Indonesia iyo Thailand waa dalalku saameynta baan xanuunka kan ay ku yeeshay isagoo India oo kaliya ku diray tiradad oo gaadhay 15 milyan adduun weynaha oo dhan galaaftay 50 milyan oo qof qarni kadib sanadii 1920 adduunyada waxa soo food saartay aan hore loo arag waxa dilaacay cudurkii faafaaga ah ee loo yaqaan Spanish flu kaasi oo muddo yar oo kooban ay ugu qurbaxeen tiradad oo ka badan 100 milyan oo qof adduunyada oo idil buu ku faafay isagoo nafaha aadanaha u goynay sidii tusbax la furay heer ay gaarsiin dhaqaatiirta qaad inay ahayd aafadii caafimaad ee ugu baahnayd ee soo martay aadanaha isha xanuunkan ka soo bilaabmay ayaa dhakhtar ku yeelay kaam ay ciidamada Faransiisku lahaayeen bi'adaas oo ahayd mid u sahlaysa in fayraskan si waaliya u fido halka kaas oo uu saameyn baan ku yeeshay askarta iyo dadkii aadka ugu dhibtooday dagaalooyinka adduunka ee koobaad COVID-19 2020 dabayaaqadii sanadkii 2019 iyo bilowgii sanadkan aynu ku jirro adduunyada waxa soo food saaray xaalad caafimaad oo aan hore loo arag iyadoo xanuunka kan ah ilaa hadda ay la daaladhacayaan dalalkii adduunka ugu tankoyna sida Mareykanka China Britain Germany France iyo kuwa kale oo badan iyadoo aad moodaysa xanuunka kan ay inuu sii saadaaliyay buugga The Eye of Darkness ee uu leeyahay qoraaga reer Mareykan ee Dean Contis isagoo buugga kan qoray sanadii 1981 qisada uu buuggan kaga warramaya isla waxay ku saabsantay magaalada cudurkan ka soo bilaabmay ee Wuhan isagoo xusay leebab ay leeyihiin ciidanka China iyadoo lagu hormarinayo shaybaadhadaas virus loo adeegsan doono as a biological weapon
qoraagu waxa uu bixiyay fayraskan Wuhan 400 isagoo tilmaamay inuu yahay hub tayo leh sababtana ku tilmaamay inuu yahay mid ku dhacaya aadanaha oo kaliya duriga u eeg weerarayna habdhiska neefsashada iyo sanbabka halka kaasi oo qofka uu ku dhaca aanu si fudud uga bogsanayn halka kaasa waxaad ka dhaahanaysaa qarnigan aynu ku jirro iyo saddexdii qarni ee ka horreeyayba in adduunyada ay soo food saaraysa xaalad caafimaad darro cudurradan saameynta ba'an ku yeelanaya nolosha aadanaha oo ku beegmaya qarni walba sanadkiisa 20aad 1720 1820 1920 iyo 2020 muuqaalka kan waxaan filayaa in ay kaaga baxeen macluumaad badan oo aanad hore u ogeyn tabadelkeeda waxaan ka codsanaa inaad kanaalka noo subscribe garayso videogana aad noo like garayso adigoo videoga kana u sii share garanaya asxaabtaada waa kanaalka 123 Soomaali muuqaalka ku xigeentan isugu iman doono nabaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh